ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa saacadihii la soo dhaafay qaaday tallaabooyin sharaf dil ku ah sumcadiisa sidoo kalena dhaawacday dawladnimadeena kadib markii uu dawladda Imaaraadka Carabta siiyay raaligelin qaldan weliba isaga oo ku hadlaya afka dawladda Soomaaliya sidoo kale Rooble ayaa ballanqaad been ah u sameeyay Imaaraadka Carabta isaga oo u sheegay safiirka dalkaasi ee Soomaaliya in uu si degdeg ah ugu celinayo lacag malaayiin dollar ah oo dawladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigtay sanado ka hor lacagtan oo gaaraysa 9.6 milyan oo dollar ayay ciidamada ammaanka Soomaaliya ku qabteen garoonka Aadan Cadde bisha Abriil ee sanadkii 2018 waxaa lacagtan ay saarneyd diyaarad ka timid Imaaraadka Carabta iyadoo safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho ay ku sheegtay in loogu talagalay mushaarka ciidamadii Soomaaliya ee uu Imaaraadku tababari jiray dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xilligaasi lacagta uga shakisay in loo waday dhinacyada dawladda ka soo horjeeda ee mucaaradka balse si rasmi ah looma oga ujeedka ay Imaaraadka ka damacsanayd lacagtaasi markan aan eegno tallaabada qar iska tuurka ah ee uu qaaday Rooble saacadihii la soo dhaafay injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay dawladda Imaaraadka Carabta ka raaligeliyay dhacdadii bishii Abriil sanadkii 2018 ay dawladda Soomaaliya ugala wareegtay lacag laga soo dejiyay garoonka Aadan Cadde Rooble ayaa go'aankan uu iskiisa u qaatay ka sheegay magaalada Muqdisho xilli uu dawladda Imaaraadka Carabta ka gudoomay deeq gargaar ah oo ay ugu talagashay caawinta dadka abaartu saameysay ra'iisul wasaare Rooble ayaa ballan qaaday in lacagtaasi oo ku jirta gacanta dawladda lagu wareejin doono dawladda Imaaraadka Carabta waqtiga ugu dhow saacado kadib madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo saaray warqad ka kooban digniin iyo amar madaxweyne Farmaajo oo fariintan ku socodsiiyay gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalka ayaa sheegay in lacagtaasi sifa aan sharci ahayn dalka lagu soo geliyay 8 bishii Abriil ee sanadkii 2018 madaxweyne Farmaajo ayaa gudoomiyaha bangiga dhexe ku amray in uusan ogolaan in go'aanka Rooble sanduuqa dawladda looga bixiyo lacagtaasi isagoo go'aanka lacagta lagu celinayo ku tilmaamay mid hal nin qaatay sidoo kale wareegtada madaxweyne Farmaajo waxaa lagu xusay in lacagtaasi ay waxyeeleyn karto amniga qaranka iyo dhaqaalaha dalka haddii ay ka baxdo qasnada dawladda maadaama Imaaraadka ay maalgeliso mucaaradka Soomaaliya waxaa mamnuuc ah in go'aan hal mas'uul gaaray lagu bixiyo lacagtaasi iyadoo aan la marsiin hanaan waafaqsan shuruucda dalka ayaa lagu yiri qoraalka madaxweynaha maadaama ay lacagtaasi dalka ku soo gashay hab aan waafaqsanayn hanaanka maaliyadeed ee dalka iyo shuruucda caalamiga ah ee isku gudbinta lacagaha taasi oo taabanaysa amniga qaranka iyo xasiloonida haddaba su'aal ayaa dul taagan go'aanka kaliya ku ah Rooble taasi oo ah sidee Rooble uu ku qaadan karaa go'aan ah in uu bixiyo lacag sifa sharci dara ah lagu soo geliyay dalka isaga oo aan la tashan madaxweynaha Soomaaliya su'aal kale markii la qabanayay lacagtan waxaa dalka ra'iisul wasaare ka ahaa Xasan Cali Khayre awoodey Rooble siinaysa in uu celiyo lacag xukuumaddiisa aysan qaban weliba isagoo aan wargelin madaxweynaha dalka dhinaca kale xogo hoose oo aan helayno ayaa sheegaya in shalay Rooble uusan la wareegin gargaar raashin ah balse uu Imaaraadka Carabta kala wareegay lacag malaayiin dollar ah oo uu isaga ka dalbaday Rooble ayaa doonaya in lacagtan uu shalay qaatay uu ku carqaladeeyo doorashada dalka isla markaana uu u adeegsado mucaaradka si dalka loogu qaso xogta waxay sidoo kale tilmaamaysaa in Maxamed Xuseen Rooble uu ka ballan qaaday Imaaraadka Carabta in lacagta uu shalay ka gudoomay uu ku burburin doono dawladnimada Soomaaliya horay uma soo marin ra'iisul wasaare booba hantida shacabka sidoo kalena aan ka amar qaadan madaxweynihiisa